in Donald Trump uu ku guuleystay doorashada iyadoo muddo dheer la sii saadaalinayay in gabadha uu la tartamay Hillary Clinton ay doorashada ku guuleysan doonto dabadeedna waxay la noqotay in bal haddaan isku dayayna wax ka ogaado arrinta Mareykanku ay sheegtaan in marka Mareykanku uu hindhiso adduunyada inteeda kala dhamina ay duray qaadaan taasoo loola jeedo wax kastoo Mareykanka dhaca caalamka intiisa kala dhanbay saameeyaan bal hadda rag odayaasha halkan jooga ee reer Bulxaar qaar kamida ayaan ka wareysanayaa doorashada Mareykanka iyo waxa ay kala socdaan magaca khadarow doorashada maanta natiijadoodii lagu dhawaaqay maxaad kala socotaa waxaan kala socdaa in doorashada ay maanta lagu dhawaaqay waxaan idin ka muuqatay tifiyada marka laga soo deenayo aad bay uga socday marka waxaan aan taageersanaa ninkan taageersanaa magaciisa ma ku sheegi karaahiye ninkan taageersanaa anigu maxaad ku taageersanayd ninka waxaan ku taageersanaa ninku waa nin waxyaabo badan ayaad ninku nin yahay aad uga sheegi kartaa isa qof dumar ah waxba maxaa ma weydiisan kartid waxna ma kuma sheegi karto oo dee dhaqankeena Soomaalidaba kuma jirto dee qof Soomaaliyeed madaxweyne qabsanaysa mid ka aniga waxa la sii yaabanaa gabadh madaxweyne hindistay anigu waan yaabanaaba laakiin waxa wararka aad ugu jirtay in ninka doorashada Mareykanka ku guuleystay uu yahay nin muslimka iyo dadka madooba nacab ma isagoo sidaas aad wali haddana isaga taageersanay laftigeedu doorta qofku marka waxaad ogaan kartaa qofka uu madaxweyne noqdo isla qofku intuu yahay qof shiciba wuxuu baa ugu sheegay karaa waxba uu taasi aniga ma dhacsan ma isma karo Soomaalida wax ku sameyn karaa laakiin de ma qarsanaynin bata oo waa arinta walaha ku galayo xitaa wakiilaha Soomaalidu hana dhaafaan Mareykan joogta taariikhdeeda waa la socday marka waxaan saasan ugu taageersanaa waxaan qabaa ma ku guuleystay mar labaad waan taageerayaa waxaan leeyahay hanoolaado ruux dumar marka lagu soo marin maayo inay marna madaxweyne noqoto barnaamijda bay guul Soomaaliland iyo waa qaar yar maqayo waxaan lahaa waa sabab la siyaabanaa marka mar haddii uu ku guuleystay thank you very much man waatay ninka odaga geeska fadhiyana haddii isla su'aashaan weydiiyo natiijada doorashadii Mareykanka ka soo baxday sidoo aragtaaye ninkii gabadhu ay ku loolamayeen adeerde way ninkii gabadhu way loolamayeen ninkii guuleysteen baa la yiri laakiin si anigu de kolayba oo qaysi si la gurigeyni haddii uu qabtay ninkii de awal mid baa helaha taasi waa taa way laantana la sheegayana Soomaalidu waxay jeceshahay inaan dumarku madaxnimada qaban way oo rag u qabto way xagga diinta ka taabacsanna way diinta islaamka ku taabacsanna sidaa darteed ruuxa dumari inay kor u kacdo oo ninka tala u qabato amba caalamka xukunto tala rag baa loo dhiibay xagga islaamnimada ka tahay xagga diinteena ka tahay taa diinta loo ku taabacsanna isla kala wasku qaaymi haddii laakiin ninka la yiri waa nin aad u guracan oo dadka muslimka iyo madowga khaasatan Soomaalida aad ugu kulul taas waxba kaama bedelayso gabadha ka daran miya ma anigu xaalashiisaasi hore lama socono way xaalasha hore dadka dhibaatada u geliya ama Soomaali ama Islaamkaba anigu lama socono Soomaalidu ugu weyleedo waa Islaam Mareykan anaga kiisa waxa waraaba corood iyo kacayn geel ku laaya arabkiisa cunaa soo wayn buur anaga kii qabtaaba هذا هدو إسلام دتك أول أنا هو سياق نعم هدانو قبرون هين يا ده قبر الدين تاني ما يرديدن واتي أنا روحتي الصوماليين عقوبة لذا الساعة عقوبة لذا ناق نبى دام هرت وصار نقول يعني كاس دب دم بقول قولي سني عقوبة لذا هدو الصومالي ده كل شيء في دب دم بقول قولي سني سلقوا حقيقي الصوماليين عقوبة لذا waxa lagu xaqijiyay wixii dhibaateeyay yaaba dhibaato u timaad bal caalamka dhageyso wixii Soomaalida dhibaato u timaad waa caynka war kale milyaanigi oo ma dhageysta baalkan maxaad kala socotay wax ma ka maqashay marka labada tartamay may waxba ka maqal geeljiran iska waxba dirka ma maqal halka tan adeer Mareykanku ay lahaan marka waxa Mareykan ka dhaca caalamka oo dhan bay saameynayaan madaxweynaha Mareykanka laga doortay deegaankan Bulxaar wax saameyn ma ku yeelanayba kulata
de horta waxa Soomaalida saameeya heedade wallaxaad kaliyeed ma ahayni way wada saameeyni ma wuu imanaya ha wuu imanaya wuu iman kara xaguuna ugu imanay dhibaatada haddii xagga ka dhacdo halkan way iman kartaa Soomaad fahmin saameyn ku yeelan kartaa waa wal ku xidhanahay mararka qaarkood dolan badan ay naga xidhaa kolka haddii xagga dhibaato ka dhacdo dhibaato halkan wala dareema colaadu meel kasta joogto ta xagga ka dhacday talkan way isku yimaadaan kowdadi marka dibad caalamku nabadgelyo ku fiican yahay haddii meel dhibaato ka dhacato hawshaasi haddii lagu soo qaxada ku filanba haddaan ku qaxno dhibaato way u tagaysa halkan haddii lagu soo qaxna way noo imanaysa marka waxaan jecel lahay in la nabdo way aad iyo aad baa mahadsantiin sida Mareykanka lagu waaqay oo taad bi muuqata way fiican tahay laakiin si dadku waxay raacsanayeen ninkan gabadha la Hillary Clinton ninkan la Donald Trump inkastoo muslimka gaar ahaan Soomaalida oo halkaas markuu meelaha ka howleen lahaa ninka wixii Soomaaliya wadanka waxa ay ku hayaan dhibaato ku hayaan oo halka aanu ka diideynba laakiin saaka markii la yiri waa ku guuleystay daal waa wada xaba gaar ahaan xaqayga marka adigu waxaad la haysay Hillary Clinton anigu waxaan taageersan Hillary Clinton arinta raggan kale ka dhawaajiyeen ee ay leeyihiin ruux dumar ma aha inay de hogaamiye noqoto ama madaxweyne adiga saa kulama muuqato miya ma kulli waxa Mareykanka looga dhigi waayay kulli waxa jira badan oo la islaamaad Hillary Clinton ka soo baxaysa oo Donald Trump asiga ka badiyay kulli de sharciga uu yaal dalka hadduu sii waayo deena ma sin karo ودي سوى مدحنimadiisi oo salaamana Cabdi Salaan su'aasha aad weydiisay waxa weeye anu gabadhan taageersanay waxaan ku taageersanay gabadha waxa weeye